waxaan kaga sheekeynayaa magacayga barasho wanaagsan waxaa la maxamed abdiraxmaan mukhtaar goortan waxaan ku bartay xaafadeena tawfiiq marka waxaan ku wada bilaabanay xaafada isku war badanay aniga xaafada isku baranay marka xaafada isku baranay kadib maasha Allah sidii aqoontii oo xaafada isku aqaani waxay aqoontii noqotay inaan marka kale is jeclaano goortan walaasheeda ah inaan si fiican isku faano oo xiriirkeena noqdo inaan jecel oo anteen isku bedasho waxaan wada soconaa 2 sano wada soconaa gabarta walaasheeda ah kulley habarteeda xawad waa isla deganahay xaaladeena waa ka warhaay habartii inaan ka doonto waa ka cabsaday waayo wata habarteeda iyo xuntaa aan arkay gabartii danta waxay igu kaliftay inaan gabartii aan wato aan masaafeysto gabartii markaan masaafeystay kadib habartii waxay dhahday horta qofka bilaadanka ah nin muslim inaa ku tilmaanto gaal waa inaa dhahday waa qalad aniga si Soomaaliya ku wadanahay inkasta oo jiric la wada yahay laakiin dhanka diinta bilaadanka oo dhan waa isku hal nin muslim inaa dhahday gaal waaye xaaraan u yahay gabarteeda ma ku xarmo jireer waaye ee waaye xaaraan waaye marka maba igu xarmato gabarteeda ma ku xarmato marka aniga mana qabataa inaa qofka bilaadanka muslimka inay saas loo bilaad hooyo iyo waxaan dambayso waxaan rabaa ka warama isku qaracsanaanta labadiina jacaylkeedin dhex yaala intuu la eg yahay noo sawir jacaylkeen maasha Allah aniga waa isku kalsoonahay qof bilaadan xoog isku aastana ma jiro gabarta saa u jeedin oo inaka dhan wada arkaysiin gabarta walaasheeda ay ugu kalsoon tahay aniga waan jeclahay marka maarma iga maalinto waxa la qarnaan meesha ma yaalo qof bilaadan xoog lagu aastana ma jiro laba qofood bilaadan xoog isku aasi karo bad laakiin dhawaatada waxay tahay nin muslim aan muslim inaa dishid oo qof oo muslim oo guursada gabar inaa dhahdid maba ku xarmaba bad adeerkayga waxaa loo dilay dadaalka oo aniga ma muujinayo farxadeena oo ka talinayo aa loo dilay fahant gabarta wax ma ku galabsan wiligeeda baa caafimaadkeeda iyo wuxuu oo fiiri jiray iyo farxadeeda balse ayaga waa garawaayeen dilay u geysteen kuwa xaafadda isku baran tawfiiq hal guri leenoo dhexeeyay asan habeen kasta guri geed tagtiisa ku xifdisanaa loo qof bilaadan si dhabad isku jeclaato wax kasta kalsoonida keen loo qof isku jecel markii dambe guur amaana kabacdina waa soo masaafaysanaa markii bacdo waxay dhahaan wiilka muusiina maya waxbarashada dhameysan maya waxbarashada dhameysan waa laga furaa maya anima lii furaa maraad waa asraacan geerin suuqmada ka waran jacaylka aad isu qabtaan labadiina baaxadiisa intee la egyahay sayid sidee jeclaan lahayd noloshiina inay noqoto aad farxad waa ka warqabtay Soomaali dhaqanka Soomaalida ee heeb sooco oo kale kan hebel qabiilkiisa kaas waaye qabiilkeeda kan waaye ma isguursano waxyaabahaas soo ma ogeen adiga markii aad isjeclaanaysa labadiin haye sidee ugu dhiiratay marka qofka bilaadanka dad qof jecel yahay qabiilna ma ishtaado qabiil dhamaan wali qabiil qiimeyn maan yaa taamo badin qofka bilaadanka dad jeclaatid qabiilkiisna weydiina waxaan soo jeedinay Soomaalida idin daawanaysa maxaa kula talinay waalidiinta dadka isjecel maxaa tala u jeedinay
qabiilkina iska dhaafaan qabiil waaba laga dhamaad maahan qabiil meesha intaale dadka hore ku dhaqan jirin waxaan fiican waalidka qabiil kuma adeegayaan dad la isku dimaaya maahan dad la dhiig leen isku daayaan maahan qabiil waxa taraa maahan qofka bil aadmiga dadka dib u jeceshaan qabiil dhan weydiinaysa لا جاء في القرية الكرجينا أدي محل سو جديني ضدك سوماليات سيدنا وكل dadka Soomaaliyeed waxaan soo jeedi lahay walaalaheen Soomaali waxaan soo jeedi lahay inay iska dhaafaan qabiil wax jira ma ahan waxa soo laga caan baxay waa laga hormar gaaray ummadda Ilaahay hadda waa ummad is jecel oo isku kalsoon marka aniga waxaan dhihi lahay hooyinka abooyinka inay iska ilaaliyaan waxyaalaha qaar oo jecelka oo dhibay mar walba aniga waxaan dhihi lahay walaalihii Soomaali si dadka sideen kale u dhiban maanta waxaan dhihi lahay inay jecelkooda ku adkaystaan aniga waxaan diyaarahay goorta walaasheeda mar walba inaan nafsadeeda u hori karo aan darteeda u dhiman karo waa goor aan aad u jeclahay dadka daawanaya walaalihii taas oo u soo gabeynaa arrinta